arteena meel kasta oo aad joogtaan soo dhowaada muuqaalkii ugu horreeyey oo la filayo in laga baahiyo mujtaba khamanaa'i maxaa wakhtigan ku soo beegay maxaase faahfaahin oo laga helay muxuuse yahay muuqaalka rasmiga ah ee la sheegayo in laga helay mujtaba hogaamiyaha dalkaasi iiraan sidoo kale wararkii ugu dambeeyey markab la sheegay in uu markaasi ku gubtay oo iiraan ay ku duqaysay xeebaha dalkaasi cumaan iyo weliba xuutiyiinta ayaan war idinkaga haynaa waxaa sidoo kale qaybka oo barnaamijka idinkagu aad ku daawan doontaan madaxa amniga qaranka ee dalkaasi iiraan oo loo magacaabay mid ka mid a ragga ugu mayaalka adag ilaalada kacaanka waxaad toos uga daawanaysaan Somali Coverage TV si ka duwan oo aad hore uga barateen Zaare Cabdi laakiin maanta annaga ayaa markaasi maqaaxida ka dhex qadaynayno markaasi marti ku ah waxaan barnaamijkayga la qayb galaya markaa wariyaha weyn ee seniorka ana markaasi madaxa TV-ga faca weyn ee British Somali TV wariye Cabdixafiid Maxamuud Jaamac Cabdixafiid maadaama aad tahay wariye weyn da'deeduna waxaad tiri ma weyne bal weynaantu ma khibradda un baan dhihi karnaa mise waa da'da soo dhowow cabdiqaadir aad iyo aad u mahadsantahay adiga iyo asxaabtoo dhan saaran hawada ayaan hawo u marinaynaa salaan gobeed mashquul weeye booskeeda lama geli karo waxa weeye qof rugcadda ah mayniyahow anigu weli waxa weeye arday baan isku haystaayo uma haysto inaan anigu khabiir ahayo khabiirka waxaa la yidhahdaa dadka waaweyn sida sheekh dalmar iyo raggaasaa loo daayaa baasha waaweyn oo muddada dheer kasoo shaqeynaya khiyaarta iyo kuwo kaloo fara badan rag iyo dumar bale cabdiqaadir waa dhowahay sharafii kalaama ii tahay hawshaad u haysid ummadda soomaalida waa kaaga mahad celinaya aad u mahadsan tahay mar kale mar walba annaga khabiir noo tahay haddii aad maaragtay wili arday isu haystidna dee ardayda annagaa noqonayna markaasi marka ugu horreysa waxaa la sheegay sawirka ugu horreeyey in laga baahinayo ninkii ahaa ayatullah mujtaba khamanaa'i bal cabdiqaadir aad aa u mahadsan tahay waa arrin haddii iiraan ay ka dhabayso dhulgariir siyaasadeed abuuraysa beeninaysana wixii maraykanka iyo xulafadooda ay gadayeen ee ahaa mujtaba cali khameyni dhaawac halisaa soo gaaray laguhu waa go'an yihiin madaxa barbaa go'an aan idhaahdee dhaawac madaxa ka soo gaaray dhabarka ayaa lafdhabarta wax ka gaareen ma kici karo dadka kuraasta aan kici karin lagu fariisiyo ku fadhiya ma hadli karo dibnaha iyo carabka barbaa go'an waxaas oo dhan ayaa meesha ka baxaya haddaba arrintu sidee ayay ku timi su-aasha dahabka waa taas weeyaan warbaahinta iiraan ayaa waxa ay sheegtay inay soo bandhigayaan mujtaba cali khameyni oo marka koowaad bulshada qaybaheeda kala duwan la sheekaysanaya suuqa maraya ma aysan sheeginin inay tahraan tahay inay magaalooyinka kala tahay ma aysan sheegin laakiin bulshada ku dhex jiro suuqa maraya iyo sidoo kale isaga oo markaa ilaalada kacaanka kulan xasaasiya la fadhiya oo la sheekaysanaya oo maqal iyo muuqaala ilaa iyo haatan 2018 bishii labaad ee sanadkan 2026 intii aabihii la khaarajiyey geeri iyo nolol lama hayo waxaynu aragnaa oo keliya qoraallo markaa la akhrinayo oo xataa codkiisii aan hayn ee markaa qof kale qoraal oo cod uu saaray taasna iiraan waxa ay sheegtay inay macnaheedu ay ka dhigan tahay in la doonayo in la qariyo oo la dabagelinin oo dad fara badan ayaa markaas qoraallada ka soo qaada tusaale 20 qof oo kale ayaa qofba warqad loo soo dhiibayaa ka timid asaga sida la sheegay marka qofka u dambeeya warqadaas warbaahinta la wadaagaya qofka u soo dhiibaya asagoo isma yaqaanaan horena iskumaysan arkinin waa fartiin qaada ujeedaduna waxay tahay inaan markaa la dabagelinin raadkiisa iyo meeshuu joogo waxaana la aaminsan yahay dhulka hoostiisa inuu ku jiro iiraan waxay tiri waa caafimaad qabaa waa nool yahay markaan anagu diyaarnahay ayaana soo bandhigaynaa askii aabihii inuu kasoo qayb gala ayuu doonayay sida warbaahinta lagu sheegay laakiin sirdoonka iyo laamaha ammaanka ayaa yiri arrintaas waa arrin aanan qaadi karaynin jira wararka iiraan ay sheegayaan maraykanku waxay yidhahdeen ninkaa dhaawac culus baa soo gaaray oo waa baqanayaa in la israaciyo ama bulshada ma soo hor istaagi karo waa niyad jabayaa iiraan inay hadda tiraahdo waa soo bandhigaynaa waa arrin aad iyo aad u weyn goortay soo bandhigayaan ilaa ay haatan ma aysan carabaabin laakiin waxay yidhaahdeen mustaqbalka dhow waa soo bandhigaynaa mustaqbalka dhow wuxuu noqon karaa maalmaha soo socda toddobaadihii soo socda bilaha soo socda ayuu noqon karaa oo muddo ayuu qaadan karaa waana soo degdegi karaa soo dhow cabdiqaadir waa gartay haddii markii hore laga baqayey in la dilo oo sababtaasi darteed loo qarinayay
weli waxaa muuqata xiisadu inay taagan tahay mana jiraan heshiis markaa la gaaray oo Maraykanka iyo weliba Israa'iil iyo Iiraan ay gaareen soo lama dhigi karo qatar kale ay Iiraan u bareeraysaa iyadoo ka soo badbaaday qatar aan caadi ahayn hoggaankeedii lagu laayay maya maxaa yeelay waxa Iiraan hadda ay soo deynayso asagoo suuqa marayo live ma waa firan hore loo duubay meeshuu jiro lama yaqaan marka Iiraan waxay rabtaa inay meesha ka saarto fikirkii oranayay Mustafa Cali Khamenei waaba la dilay ma jiro dadka lagu maaweelinayaa labo ninka dhaawac culus baa soo gaaray inay meesha ka saarto oo la arko muuqaalka la baahiyo isagoo soconaya meelo kala duwan jooga san AI loogu malaynin oo Iiraan ay halaag ku tahay isla mar ahaantaasna bulshada loo qanciyo caalamkana loo tuso ninkii inuu nool yahay laakiin meeluu jiro lama yaqaano cabdiqaadir waa gartay laakiin waxaa la lahaa codkiisa lama hayo oo waxaa laga baqayaa in barnaamijka AI lagu taxliiliyo ama lagu falanqeeyo oo lagu dabagalo muuqaalkii sidoo kale soo dhankaasi teknolojiyadana cabsi kama dhalanayso markan mise Iiraan waxay ka gudubtay marxaladaas oo waxaa la dhihi karaa waxay heshay awood kale oo difaaceed markaas haddii in la dabagalo muuqaalkan ciddi duubtay ay tahay oo aad ay u sahlan tahay maanta waxaynu ognahay teknolojiyadu meeshay gaadhay kaamarad kasta oo wax lagu sawiro ama video lagu duubo qofku meeshuu joogay iyo kaamarada duubtay iyo noocay tahay iyo waqtiga iyo taariikhda waxaasoo dhan ayaa kaamarada gudaheeda ku jira laakiin kaamaradaas haddii wax lagu duubay 6 bilood ka hor oo haatan ama qashinka lagu daray ilan Iiraan way feejigan tahay ama meel aan la gaari karin dhulka hoostiisa joogta sidee loo baadigoobayaa raadkiisa loo raacayaa meesha uu ku jiro waana meesha Iiraan ay isku halaynayso sida la sheegay laakiin waxa muhiimadda ugu weyn ay tahay in la sugo inay Iiraan soo bandhigto ka dhabayso inay isbedesho inay soo bandhigi weydo intaba waa suurtagal waa gartay waa sugi doonaa shalay waxaa jiray saacadihii lasoo dhaafay war kale oo culus oo madaxii amniga qaranka ee dalkaasi Iiraan ninka la yiraahdo markaa Maxamed Baaqir Dulqadar oo isagu iscasilay sida la sheegay waxa lagu bedelay baa la yiri Muxsin Ridai bal maxaa laga ogyahay ninkan maxaa keenay waqtigan in ninkaasi laga bedelo ninkan cusub loo dhiibo sida hore dhacay u sheegtay wadaan laba dhinac aynu ka eegno Muxsin wuxuu ka mid yahay ragga ugu mayalka adag kalsoonida buuxdana uu ku qabo Mustafa Cali Khamenei iyo ilaalada kacaanka guud ahaan waayo araga muddo dheer soo shaqeynayay shaqooyin kala duwan iyo darajooyin kala duwan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ka soo gaaray isla mar ahaantaasna xogaalka oo xaaladda Iiraan maanta ay marayso wuxuuna ka mid yahay ragga markaa midida daabkeeda haya ee markay talo iyo tusaale ay noqoto iyo markaas howlgelin ciidanba intaba markaa ragga loo daba fariista ayuu ka mid yahay dhinaca kale waxay tusisaa Mustafa Cali Khamenei nabiyyi aabihi inuusan ku taagnayn oo ka weecday isla mar ahaantaasna uu ninba intuu nin ka mayal adag yahay uu keenayo askari horey uga tirsanaan jiray Israa'iilna uu sheegay inuu doonayo inuu aargoosto oo aabihii iyo wiilkii iyo gabadhiisii yaraa iyo xaaskiisii u aargooyo nin doonayo inuu yahay oo caraysan marka tilaabadan uu qaatay la taliyaha amniga oo Muxsin u magacaabay qaran waxa ay ka dhigan tahay Mustafa inuu nin aad iyo aad u fog u yahay inuu aargoosto la doonayo sida wararku ay sheegayaan ma dhihi karnaa marka ragga dhexdhexaadka ama dabacsan sida Bazakshian Abbas Araqji iyo ragga sidaas ee xukuumadda sida muuqata awoodoodii gacmaha way kasii baxaysaa oo waxay ku ururaysaa gacanta ragga aadka mayalka u adag maxaa saameyn ka dhalan kara Iiraan waxay leedahay dabaqado kala duwan ee maamulka dowladnimo ayay leedahay markay noqoto ilaalada kacaanka waa nimanka talada amni ay ka go'do ee dalka Iiraan ay ka go'do rag aad iyo aad u fogna u badan Abbas Arachi iyo ninka la yiraahdo Qalibaf iyo afayeenka baarlamaanka madaxweynaha Mas'uud Basashkian iyo waa wajigii siyaasadda Iiraan weeye oo diblomaasiyadda iyo shaqada ay hayaan ayaa waxay keenaysaa inay u hadlaan mararka qaarkood si dabacsan laakiin markay timaado gorgortanka arrimaha hortabinta iyo Iiraan u leh ee ayatiinkooda taabanaya niman jilicsan iyo ayagu aad bay u kala fog yihiin niman jilicsan laguma tilmaami karo bal waxaa lagu tilmaami karaa niman xogogaal ah midiyuhu u soo faysan yihiin yaqaanana shaxda ay ciyaarayaan iyo garta meesha ay ka geli karaan iyo meesha aysan iska qabanin intaba hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online baryahan ubadkaagu halkay baafinayeen oo baahi ay u qabeen ayaan soo bandhigayaa bisharada niga hooya oo diinta bilan iyo barashada qur'aankaba ku barbaaray carruurta
hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah quraanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka tarbiyadda asaasiga ah ee ilmaha tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shareecada waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo ka mid ah isbuuca dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado faahfaahin dheeriya la xiriir whatsappka +252 633 145 153 waa gartay saacadihii la soo dhaafay waxaa la xaqiijiyey in markaasi xeebaha Cumaan ayaa la sheegay in markab lagu gubay waxyeelo ka soo gaartay maxaa faahfaahin oo laga helay markabkan xilliga hadda barnaamijkan aan duubayna ayuu gubanayaa oo markaas aynu halkan ka arkaynaa qiiqiisa halkan ka baxaya cidda iskale lama sheegin cidda weerarka qaadayna ilaa ay haatan lama xaqiijinin laakiin waxaa tusaale kuugu filan meesha markaas uu ku gubanayo oo Cumaan ah maraakiibta dhinaca Cumaan inta badan marana inta badan waxaa la sheegaa inay imaaraadku ay leeyihiin oo hore iyo dhacday saacadihii la soo dhaafay saasoo kale markii imaaraadku leeyahay in la weeraray marka imaaraadka ala malihin haatan laakiin maraakiibta halkaa marta markaa doonaysa inay dhabaha Cumaan dhinaceeda marto Mareykanku uu doonayo waa inta badan waxa iska leh imaaraadka marka cidda weerarka qaaday markabka cidda iska lama xaqiijin karo laakiin waxa tuun jira ah inay marka Iran ay qaaday iyo imaaraadku leeyahay waxa kale oo jira oo arrin muhiim ah inay jiri karaan sida la sheegayo false flag waxa la yiraahdo marka kooxa ayagu meelo kale ka soo amar qaata oo doonaya marka inay Iran dagaalkeedii uu soo rogaal celiyo oo waantaan iyo nabadda hadda socota markaas la kala dhantaalo oo dagaal dib loogu soo noqdo Donald Trump la gaarsiiyo meel uusan markaas dulqaadkiisa meesha u dambaysa la gaarsiiyo si markaa uu ugu qanco ama loogu qanciyo Iran inaysan waxba ka soo soconin wada xaajoodku ma dhalaysa yihiin culimada militariga Mareykanka mar saddexaad inuu soo celiyo arrintaas ra'iisul wasaaraha Tel Aviv aad ayuu u danaynaya ayaa leeyahay wada xaajoodkan iyo wada hadalkana raalli kama ahan laakiin macnaheedu ma ahan inaan leeyahay Israa'iil ayaa kooxahan ka dambaysa waxaa jira tiimam fara badan oo dana kala duwan leh oo bariga dhexe ku nool oo ay imaaraad ka mid yihiin oo Mareykanku ka mid yahay oo Iran dhexdeeda ilaalada kacaanka laftigeeda ay ka mid tahay oo wada xaajoodka aan raalli ka ahayn sida qaarkood ay sheegayaan wararka qaarkood ay sheegayaan ayaa jira ciraaq kuwa ka dagaalama ayaa jira marka way adag tahay in la xaqiijiyo cidda ka dambaysa weerarkan laakiin wax walba waa suurtagal marka wararkeena dambe ayaanu ku ogaan doonaa iyo Somali coverage Wednesday aad baad u mahadsantahay cabdi xafiid saacadihii la soo dhaafay qaybihii ugu dambeeyay aan ku jirnaaye saacadihii la soo dhaafay waxaa jiray xuutiyiintu in weeraro aan loo aabayeelin iyagu ay ku qaadeen dalka Sacuudiga maxaa faahfaahin oo laga helay weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay maxayse fariimo ay dirayaan weeraradaas Sacuudiga lagu qaaday laba dikadood oo waaweyn oo midna dhinaca bariga ay ku taalla ee kulaalaysa markaas Strait of Hormuz ka soo horjeeda midna markaas ku taalla badda cas ayaa weerar lagu qaaday khasaare ayaa ka dhashay Sacuudigu khasaarihii wuxuu sheegay markiiba inuu xakameeyey xakamaynta laftigeeda waxay u baahnaa inay bulshadeenu ay fahanto Somali coverage ku xiran oo ah TV caalami ah oo warar sugan iyo barnaamijyo isdaba jooga 24 saac ay ka baxaan Cabdiqaadir waxa xusin mudan Sacuudigu inuu yiraahdo markiiba waa xakameeyo khasaarihii waa soo koobay laftigeeda waxa leeyahay Sacuudigu ma rabo inuu xalaq mareen u arko iyo in markaa la weerari karo oo arrinta hoos ayuu u dhigayaa laakiin khasaaro ba'an ayaa Sacuudiga soo gaaray oo in ammaankiisii lagu soo xadgudbay ayaaba kuugu filan markaas jab ayaa la leeyahay xuutiyiinta Sacuudigu inuusan ka adkaan karinin ayaa dhinaca kale khubarada militarigu ay saadaalinayaan oo waxaa ku filan hal gantaal oo markaa xuduudda ay kala beegsadaan Sacuudiga hamahooda shidaalka ama ceelasha shidaalka intaasoo keliya ayaa ku filan arrin Sacuudigu wax ka qaban karaan cid kalena ma ahan waxaana Iran Yemen la dagaalamay Mareykanka la dagaalamay xilligii Joe Biden waxaa kaloo la dagaalamay madaxweynaha haatan xilka haya ee Mareykanka oo markii dambe go'aansaday inuu heshiis la galo Israa'iil ayaa dhowr jeer duqeysay weli waa soo taagan yihiin Sacuudiguna wax ka qaban kara ma muuqato laakiin waxaa socota arrimo hoose oo waawaan ah oo la doonaya arrintan in lagu xaqiijiyo lagu xalliyo xal Sacuudiga waara iyo markaa Yemen ay markaa ay isla gaaraan gaar ahaan xuutiyiinta carabtu markaan oo kale waxay yiraahdaan ibluuha oo liqa ma Sacuudigu marka ma liqi doona mise Turkigan iyo Pakistan heshiiskii hadda uu la galay buu
dhaqaajin doonaayo xuutigu waa looga jawaabi doonaa ma muuqatay in markaas turkiga iyo bakistan ay kasoo qayb qaadanayaan dagaal xuutiyiinta ee sacuudiga uu ku qaado laakiin waxaa suurtagal ah in ay ayaga laftigooda waanwaanta ay dhinac ka noqdaan oo iiraan ay bakistan la hadasho oo turkigu ay la hadlaan oo yidhahda arrintan hala dejiyo oo aysan muslimiinta dhexdooda aysan ka dhex curanin oo dagaalku wejiga noocaasa aysan yeelanin oo aan markaa shiica iyo sunni aan loo dhiginin ama muslimiinta dhexdooda aysan isweerarinin ayay ku dadaalayaan marka ma muuqato in sacuudiga iyo bakistan haatan ay weerar kusoo qaadayaan xuutiyiinta ma muuqato inkastoo wasiirka arrimaha dibadda turkiya uu yiri shalayto xakiim fidan annagu iiraan weerar kuma nihin taargetna nooma ahan laakiin waddamadan mid ka mid a hadday soo weerarto dagaalka waa soo gelaynaa xuutiyiintu booskaas ayay buuxinayaan laakiin ma muuqato xilligan inay arrintaas soo socoto cabdiqaadir aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha seniorkana rugcadaaga madaxa tv-ga faca weyn ee british somali t v cabdixafiid maxamuud jaamac qadka ayuu toos ugu jiray isagoo stuudiyaha marka magaalada london markaasi noogu warramay cabdixafiid aad baad u mahadsan tahay mahadsantahay cabdiqaadir guuleys daawadayaal zahra waa naga mashquulsan tahay insha allah laakiin barnaamijyadeena dambe ayay markaasi iyaduna qayb kasoo noqon doontaa oo halkeeda ay kasii wada doontaa aniga cabdixafiid waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad